inta badan waxaynu maqalnaa gumaystaha Israa'iil marka aad maqashid Yahuudna waxa kaliya ee maskaxdaada ku soo dhacaysa waxay noqonaysaa tiro dad ah oo xoog ku haysta dhul islaam oo uu ku yaalo masaajid ku suman inuu ahaa qibladii koobaad ee islaamka iyo sidoo kale masaajidka saddexaad ee ugu barakada badan adduunkan oo dhan. laakiin weli ma isweydiisay daawade xagee ka yimaadeen Yahuudu, sidee ku qabsadeen Falastiin, sideese awood ugu yeesheen inay dhul aysan lahayn ay kula wareegaan si sahlan, dadkii ay ugu yimaadeenna ay ka dhigaan mid ay go'doon geliyeen iyo sidoo kale mid ay qaxiyeen. haddii aad isweydiisay su'aalahan balse jawaab aad u weyday, waxaynu jawaab ugu raadin doonaa muuqaalkeenna maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo waa Bari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتي دولتي عثمانيين dhulka Falastiin waxa ku noolaa Kristan, Muslimiin iyo sidoo kale tirayar oo Yahuud ah. waxay ku wada noolaayeen si nabadgelyo ah. xukunka guudna wuxuu hoos tagayay khilaafadii Cusmaaniyiinta oo markaasi ahayd dawladda kaliya ee ka talin jirtay dhulkii islaamku uu degi jiray. Yahuudda ayaa caalamka ka ahayd dad aan xuquuq badan ku lahayn, cadaadis badanna kala kulma dalalka ay ku hoos nool yihiin. cadaadiskaasi iyo ciriiriga joogtada ah ee ay wajahayeen dadka haysta diinta Yahuudda ayaa keentay inuu abuurmo dhaqdhaqaaq lagu doonayo in la abuuro hal dal oo ay Yahuudda ku sugan daafaha adduunka oo dhan ku nool yihiin. dhaqdhaqaaqa ugu badanna waxaa hogaaminayay Yahuuddii ku noolayd bariga qaaradda Yurub. 1896 waxaa miiska la soo saaray in dib u dejinta Yahuudda loo doorto 4 waddan midkood, kuwaasi oo kala ahaa dalka Falastiin, Argentiin, Mozambique iyo sidoo kale dalka Uganda. dadkii waday qorshaha raadinta dal ay Yahuuddu leedahay ayaa go'aan ku gaaray in Falastiin noqoto halka laga taagayo tiirka cusub ee bilowga u noqda hindisaha aasaaska Israa'iil. bilowga qarnigii 20aad waxaa daafaha iyo gudaha Yurub ka bilowday dhaqdhaqaaq ay Yahuuddi ku noolayd Yurub ku doonayaan inay taageero ugu helaan qorshahaasi. boqortooyada Ingiriiska ayaa bilowgiiba noqotay dawladdii ugu horeysay ee taageerta abuuridda dal ay Yahuuddu leedahay, waxaana sanadkii 1917 wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriisku ay soo saartay warqaddii ku caanbaxday magaca ballanqaadkii Balfour. warqaddan ayaa ahayd bayaan ay dawladda Ingiriisku si cad ugu qeexayso taageeridda iyo garab istaagga dawlad ay Yahuuddu leedahay iyo sidoo kale sidii looga caawin lahaa dhisidda iyo deegaaminta Yahuudda. waxaa la dejiyey qorshihii Yahuudda loogu rari lahaa dhulka reer Falastiin, sidoo kalena loo dejin lahaa. waxaa bilowday abaabul si hoose Yahuuddii ku noolayd bariga Yurub loogu daadguranayo dhulka reer Falastiin. dhammaadka dagaalkii koobaad ee dunida waxaa Falastiin ku soo qaxay Yahuud ka badan 50,000 oo qof, kuwaasi oo ka soo guuray dalka Poland, Ruushka iyo Ukraine iyo qaybo kale oo bariga Yurub ah. sanadba sanadka ka dambeeyana waxaa sii kordhaysay tirada Yahuudi lagu soo daadgureynayay Falastiin ilaa sanadkii 1920 ay ka noqdeen tirada guud ee dadka dega Falastiin Yahuuddu 12%. sanadkii 1924 markii ay burburtay khilaafadii Cusmaaniyiintu waxaa kor u kacay damacii ay qarsanayeen awoodaha gadaal ka riixaya mashruuca dejinta Yahuudda ee bariga dhexe. gumaystihii Ingiriiska ayaa la wareegay dhulka reer Falastiin, waxa uuna gacanta ku dhigay qaybo kale oo ka mid ah bariga dhexe. si degdeg ah ayaa loo soo daadgureeyay Yahuuddii ku noolayd Yurub oo xasuuq iyo beegsi ba'an kala kulmayay Naaziyiintii Jarmalka ee uu hogaaminayay Hitler. 2 sano kadib burburkii dawladda Cusmaaniyiinta, 78,000 oo Yahuudi bariga Yurub ah ayaa soo gaaray Falastiin. tirada Yahuudda xoogga lagu dejiyey waxa ay dadka dhulka Falastiin ku nool ka noqdeen 17%. dadka reer Falastiin oo aad uga soo horjeestay dadkan dhulkooda sida xoogga ah loogu beerayo ayaa bilaabay in ay dagaal kala hortagaan doomaha wada dadka laga soo daadguranayo bariga Yurub. Ingiriiska ayaa abaabulay kooxo u hubaysan sida ciidan jabhadeed, kuwaasi oo uu ka dhex qoray Yahuudi uu soo dejiyey Falastiin. ujeedka ciidankan ayaa ahaa sidii loo heli lahaa ciidan iska caabiya Falastiiniyiinta oo xilligaasi dareen xooggan iyo sidoo kale weji adag ku qaabilay Yahuuddan xeeladda iyo xooggaba lagu soo dejiyey dhulkooda. sanadkii 1929 waxaa dhacay dagaalkii ugu horeeyay ee dhex maray kooxihii uu hubeeyey Ingiriiska iyo kooxaha Falastiiniyiinta. dagaalkan
ayaa ka dhacay derbiga masjidka Al-Aqsa waxaana ku dhintay ku dhowaad 300 oo qof oo isugu jira labada dhinac. mar kale bilowgii sanadkii 1930 waxaa dhulka Falastiin soo gaaray 250,000 qof ama 250,000 oo Yahuud ah oo laga soo daadgureeyay meelo kala duwan. ciidanka badda Ingiriiska ayaa doomo waaweyn kaga soo daadgureynayay dadka waddan kasta oo Yurub ah. mar qura ayay tiradii Yahuuddu gaartay 30% waxayna noqdeen awood xooggan oo aan la yareysan karin oo ku tarmay kuna dhex fiday dhulka Falastiin oo dhan. waxgaradkii Falastiin ayaa bilaabay abaabul dagaal oo ka xooggan dagaaladii hore. 6 bilood ayay si joogto ah weeraro ugu qaadayeen xeryaha la dejiyay qaxootiga Yahuudda. dhiig badan ayaana ku daatay dagaaladii u dhaxeeyay Falastiiniyiinta iyo ciidankii Yahuudda oo markan hub badan ka helaysay Ingiriiska. gumaystihii Ingiriiska ayaa markan dejiyay qorshe ka halis badan kii hore wuxuuna u kala qaybiyay dhulkii Falastiiniyiinta oo lahaa dhulka iyo sidoo kale Yahuuddii shalay qaxootiga ku soo gashay. maadaama markan tiradoodu ay isku dhowaatay 30%, dhulka waxaa la siiyay Yahuudda. 70% soo harayna waxaa loo dhaafay Falastiiniyiinta, halka magaalada barakaysan ee Qudusna uu Ingiriisku u sameeyay maamul si gaar ah isaga u hoostaga. qorshahan cusub dad badan oo reer Falastiin ah ayaa ku waayay dhulkoodii iyo sidoo kale deegaanadoodii kuwaasi oo ku yaalay dhulkii la siiyay Yahuudda. waxaana bilowday in dadkii loogu yimid dhulka ay markan noqdaan qaxootiga ka qaxaya dhulkoodii oo si xoog leh loo kala qaybsaday. sanadkii 1947 Ingiriiska ayaa ciidankiisii kala baxay dhulka Falastiin kadib markii uu dulqaadan waayay qalalaasihii ka dhashay qorshihiisii dulmiga ku dhisnaa. waxaa magaalo walba ka bilowday dagaallo iyo isku dhacyo. taladii dhulkana wuxuu gacanta u geliyay Qaramada Midoobay oo markaasi ahayd urur cusub. Qaramada Midoobay ayaa soo saartay go'aan xoojinaya go'aankii uu Ingiriisku ku kala qaybiyay dhulka Falastiin. maamulka magaalada barakaysan ee Qudusna waxaa si toos ah loo hosgeeyay Qaramada Midoobay. Falastiiniyiinta ayaa aad uga soo horjeestay go'aankaasi waxayna mar kale bilaabeen dagaal hubeysan, balse Yahuudda oo markan xoogaysatay ayaa suurtageliyay in ay u sahlaan Yahuud kale oo cusub in ay ku soo biiraan oo ay u soo guuraan dhulkan. ciidanka Yahuudda oo markan aad loo hubeeyay ayaa sanadkii 1948 ay u suurto gashay in ay xoog kula wareegaan 78% dhulka reer Falastiin. waxa ayna dhiseen dawlad ay ugu magac dareen Israa'iil. dawladdan cusub ee laga dhex dhisay dhulkan ay xoog ku qaateen waxa isla markiiba aqoonsaday Ingiriiska iyo Mareykanka, waxayna ka mid noqotay dawladaha ku jira Qaramada Midoobay. waxayna sidaasi si rasmi ah uga dhigeen dawlad jirta oo la aqoonsan yahay. Falastiiniyiinta ayaa waxay u qaybsameen 2 qaybood. qayb u qaxday wadamada dariska la ah sida Urdun iyo Lubnaan, iyo qayb ku hartay gudaha Falastiin. waxaa la abaabulay kooxo jabhada ah oo ay ugu weyneyd ururka Jabhadda Xoreynta Falastiin. jabhaddan ayaa dagaalo toos ah la gashay ciidanka Israa'iil. waxaa markii dambe dagaalka soo galay isbahaysiga wadamada Carabta. 1967 waxaa dhacay dagaal socday 6 maalmood kaasi oo ay isaga hor yimaadeen dalalkii Carabta iyo sidoo kale Yahuudda oo garab ka helaya Ruushka, Ingiriiska iyo Mareykanka. waxaana lagu jabiyay dagaalkaasi dalalkii Carbeed. Israa'iilna waxay qabsatay dhul cusub oo ay ugu jiraan bariga Qudus, marinka Gaza iyo daanta galbeed oo Falastiin ah, iyo buuraha Golan Heights iyo jasiirad lamoodka Sinai oo ka tirsan Masar iyo Suuriya. wadahadal kadib markii dambe waxa ay ka bixeen deegaanada qaar, balse weli bariga Qudus iyo buuraha Golan Heights ilaa maanta waxay ku jiraan gacanta Israa'iil. ururka xoreynta Falastiin ayaa weeraro badan ku qaaday danaha Israa'iil ee gudaha iyo dibadda. waxa ay fuliyeen howlgallo lagu beegsanayay Israa'iil, waxayna isugu jireen siyaasiyiin danaha Falastiin ku difaaca saaxadda caalamka iyo sidoo kale ciidan ku jira dagaalka. waxaana yool u ahaa xoreynta Falastiin qaab walba ay ku qaadataba. muddo kadibna waxaa halganka ku soo biiray kooxda Xamaas oo ilaa maanta la dagaalantay Yahuudda, halka jabhaddii xoreynta Falastiinna ay isku beddeshay urur siyaasadeed. dagaalada iyo iska caabinta shacabka reer Falastiin waa mid ilaa maanta taagan. halganka xoreynta Falastiinna waxaa ku daatay dhiig badan, waxaana hubaal ah in qoys walba oo ku nool Falastiin ay taabatay murugada geeridu. kumanaan ayaa ku jira xabsiyo, kumanaan kalena waxa ay noqdeen qaxooti ka qaxay guryahoodii oo ku kala daadsan daafaha adduunka. Israa'iil waxa ay maalin walba si xoog ah ku sii wadaa
la wareegidda dhulka reer Falastiin, adduunkuna wuxuu u qaybsamay kuwo ku taageera dulmiga iyo kuwo aan ka hadlin balse dusha uun kala socda. Waddamada Carbeed oo markii hore taageero siin jiray kooxaha u dagaalama xorriyadda Falastiin ayaa maanta dhinaca kale ka wareegay. Waxa ay u kala tartamayaan sidii ay heshiis iyo xiriir ula samaysan lahaayeen Israa'iil. Laakiin si kasta oo waqtigu u adkaado, duruufuhuna u dhib badnaadaan, waxaa xaqiiq jirta ah oraahda oranaysa dhul ninkiisa ayaa iska leh. Gumaysigu waa uu jabi doonaa, dulmiguna maalin uun uu dhammaan doonaa. Si kastaba ha ku dhammaadee, halganka reer Falastiinna waa uu guulaysan doonaa. Intaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyay muuqaalku, ha ilaawin inaad leeg noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta aan ku midownay madashan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.